asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaanu ku faaleyn doonaa gosgooskii laga soo bandhigay gosgooskii labaad ee qaybta 174 ee taxanaha gundiga cusmaan. fadlan haddii janalka cusubtahay subscribe noo saaro horaadii nala joogtay muuqaalkeena la garay daawad aad iyo aad ayaad noogu maasantahay intaynan guda gelin muuqaalka ka hor haatan ku saliya xabiibkeena Muhammad sallallahu calayhi wasallam. hadeerna si toos ah aynu guda galnaa muuqaalkeena maanta. wareenta idinka soo daayay gosgooska karaal noqda mashquulka aska badan bariyaha dambeeyo. waaya gosgooska xalay ayaanu faaran doonaa inagoona markaasi hadalada iyo dhacdooyinka isku dulwadi doono. wareen waxaynu arkaynaa ninka lagu magacaabo Cusmaan oo ciidamadiisa dhiirigelinayo. hadaladiisana waxaa ka mid ahaa guul lama keeni karo iyada oo aan markaasi khasaaro laga kulmin. guusha waa loo silcaa ee dheef si fudud lagu helo habeeraatay ma jirto ayuu leeyahay. wadada hadeer anaga aynu ku socono way adag tahay. dhiig fara badanna wuu daadan doonaa. nafaf fara badanna sidoo kale waynu wey doonaa. intaa kadibna waxaynu arkaynaa odaygii beehaan ahaa oo sidaas ku geeriyooday. wiilkiisiina markaasi uu ka dalqoylinayo waa Saaruja. Cusmaanna goobta markaasi yimid dab ayaana ka kacay. halkaasina waxaa lagu dilay markaasi beehaan. waxayna u badan tahay markaasi beehaan inuu qabiilkiisa joogay maadaama il hadda inaan arkay asagoo qabiilkiisa ku sugan sida seasonka loo bilaabo. xalqada kood biso kaliya laga yaabaa inaynu aragno ilaa hadda markaasi dib loo maarmo sidaas darteeda halkaas ayuu ku geeriyooday isagoona markaasi aan arkaynay calaamada Cusmaan hata iyagoo meesha ka taagan. marka waxaynu ogaanaynaa beehaan inay dileen markaasi Sofia iyo sidoo kale taba ninka lagu magacaabo Lucas. waxyaabaha hore u sheegnay waxaa ka mid ah beehaan inuu taxanaha isaga baxay isaga markii sidaas darteeda shakiyo idinka gelin beehaan inuu sii noolaanayo in kale taxanaha sidaas uga baxay gebiyaanba baba sii joogi doono. waxaa kaleeto arkaynaa markaasi gabadha Holovera lagu magacaabo waxay ku qalqaylinaysaa markaasi dumarka meesha jooga ee sijaayadaha sameeyo kuwaasoo markaasi beriyii dambe kibir bilaabay waxayna ku leedahay markaasi halka raggeena dagaal ay ku jiraan iyo dagaalyahanadiina naftoodana ay u hurayaan anaga si ay inoo badbaadiyaan adiguna idinka ogolaamaya wax qalada inuu dhaco markaasi qofka qalad sameeyay ciqaab la'aan anigu ma diri doono anaga ciqaabay ay leedahay. marka iyadana waxaynu arkaynaa dhankeeda iyadoo dumarka ku qalqaylinayso hawshoodana inay qabsadaan halka raggoona dagaalka ay ku mashquulsan sida iyada laftirkeedaba u sheegaysa markaasi. ama dhanka kaleeto Sofia iyadana waxay gadaal ka soo tuuraysaa inantii yareed ee Xaliimo lagu magacaabay iyada hadduu sheegato markaasi inay habaryaro lana yiraahdo markaasi magaceeda Boyina. waxayna leedahay markaasi adiga ehelkaasi waxay baabi'iyeen markaasi qoyskaaga ayay baabi'iyeen xulajeeda Cusmaan iyo ehelkiisa sidaas oo kale adigna waxaa la rabaa markaasi inaad qoyskooda baabi'iso xitaa riyada ugu maanaysaa waxayna ka dhaadhicinaysaa markaasi wax walba ay inay ku amarto isla marhaantaasna sidaas ku sameyso. Sofia waa shaydaamad. waxaa laga yaabaa xalqada soo socota inaynu ku aragno markaasi gabadha yar ee Xaliimo lagu magacaabo inay dib u soo xasuusan doonto waalidkeeda laana iyada qof oo markii la afduubanayo waxay ahayd markaasi xoogaa wax fahmi karo oo 5 sano ilaa 4 sano ka badan jira ayuu ahaa 5 sano tabay ka badneed muddada ay Sofia satana 10 sano sidaas darteeda Sofia way ka adkaatay inaan warbi ku shibi jirtay. waxaana la rajaynayaa markaasi sida aan ku daawanay gosgooska hore marka baala ay qabriga ku dul ooyeysay ay dhigaysa markaasi inanteeda Xaliimo ii seexo in gabadhaana markaasi gadaal ugu timaad iyadana markaasi mindid ay watay dil isdheysay xoogaa baala magacay ku dhawaaqaysay iyo qaabka naxariista leh ee uga hadlayso in gabadhaana markaasi qiiro geliyo isla mar ahaantaasna ee xasuuso hore gashay sidaas darteedina markaasi uga joogsato inagoona hore uga sheekayna markaasi inaysan gabadhaani marnaba baala gacan saari karin. waxayna u badan doontaa markaasi oo boosdag uga faa'iideysan doonaa gabadhaani waxyaabo hore inay soo xasuusan doonto sidaas darteedina markaasina ay u joojin doonto markaasi dilka baala iyadoona ka gaabin doonto markaasi inay Cusmaan eelkiisa weerarto laakiin Sofia ayaa markale hadan ku dhiirigelin doonto maadaama ay Sofia ka dareemi doonto gabadhaani inay gaabis badan ay bilowday. waxaa kaloo laga yaabaa xitaa teendhada mudana Cusmaan dhexdiisa inay ku aragto markaasi gabadhaani sariirtii yareed ee iyada markii yar la saari jiray iyo waxyaabo badan inay soo xasuusi gelisa. marka sidaas darteeda wax yar haday xasuuso istiraadana Sofia dhanka kale u joogto iyadana dib ugu soo celin doonto mar walba maskaxdeeda update ay marin doonto haduu Ilaahay idmaayo. marka gabadhaana xalqada soo socota waxyaabo badan ayay soo xasuusan doontaa laana waqtiga la afduwanay qof xoogaa oo markaasi hadli karo aqli Ilaahay way ahayd oo ilmo yar laakiin oo aqli saas ma laakiin waqti wax lagu xasuusto way ahayd ayaaba ay sii socona. markaa waxaa kaleeto arkaynaa ninka lagu magacaabo Lucas oo dhahayo saaxiib wuu jiraa cadawna wuu jiraa qiyaanoole iyo jaasuusna sidoo kale way jiraan marwa biguun waa qiyaanoolaha anaga nagu dhex jiro qaraasiyo
qaraasina intaa ka bacdi waa xaqiiqsan doonaa li'anna waxa u sheegi doona waxaan oran Kanyomozi sidii goosgooska hore ku daawanay Kanyomozi dabagal wuxuu ku hayay markaasi gabadha lagu magacaabo Biguum. intaa kadibna Biguum inta la qabta ayaa marada laga saaraya madaxa ugu jirtay iyadoona Sofia alaabtii markaasi hadda ka hore wiilkii Sadiq loo bixi jiray waxay ku sameeyso kale Axmed Sadiq ma lii jiray ma cunugii soo islaami jiray ay dilay haduu ilaa idmaayo baamsi wiilkiisa haday aad xasuusataan marka Salvador ninka la dhigi jiray waa hore waaye qaabkaas oo kale ay rabtaa markaasi haddana inay ka uga siiso Biguum iyadoo waxaynu arkaynaa mindi markaasi dhuunta rabta inay ka geliso waan uga riixaysa koleeto waxay caafinaysaa ma balahanba naagta lagu magacaabo Biguumna waxay leedahay markaasi waxa sameeyeen ciqaab la'aan habarteeda ka tahay in la idin diro oo mudane Cismaan ayaa ba idin kala xisaabtami doona waxa aniga ugu sameeyeen halka orahaan iyo Jarkuta iyaguna markaasi manjaniqiye u qaateen si ay u soo furtaan qalcadii Aqxisaar halka Sofiana markaasi ay ku leedahay wajigaaga qurux badan wuxuu noqon doonaa mid laga ashi doono oo aniga ku dhedheelay leedahay inta kadibna Cismaan markaas ka bacdi waxaynu arkaynaa ninka lagu magacaabo oo hadlay Jarkuta qalcadaani nijaasada waynu burburinayna gabi ahaan bayuu leeyahay halka Sofia iyo Lucasna kor ay ka daawanayeen manjaniq ayaana lagu soo tuuriyeynay aadi awleedin soo dhagaxeynaya darbiyadii soo saarma ka degataan meesha waxa kale oo arkaynaa Cismaan oo dhahaya markaasi dagaalkani wuxuu u dhaxeeyaa kuwa wadada xaq ku taagan iyo sidoo kale kuwa wadada xaq ka leexday goosgooskana sidaas ayuuba ku soo idlaanaya dhamaad ayuuna noqonayaa marka asxaabta waxyaabaha lagu daawado goosgooska intaas ayay ahaayeen waxyaabaha ugu weyn goosgooska loo daawaday xalqada soo socota inuu ku daawan doono labada goosgoos marka isku soo darnaa wax kale tama noqon doonaan kow furashada Aqxisaar oo Cismaan weerar ku qaadi doono labo Cismaan sidoo kale gacanta ku dhigi doona markaasi macbadkii ay gacanta ku haysatay kaniisadda gabadha lagu magacaabo Sofia iyo sidoo kale waxa kale u daawan doona Cismaan oo jaasuus ahaan markaasi ay ugu soo shaqeyn doonto gabadha lagu magacaabo Biguum sir badan ay uga soo gudbin doonto markaasi oo u dhaxeeya ninka lagu magacaabo Qaraasi iyo sidoo kale taba jaasuuska sidoo kale taba ninkii Lucas ahaa iyo gabadhii Sofia haddana waxaan kale u daawan doonaa gacan ku dhigista Biguum ee gacanta ay u gali doonto markaasi cadawga iyadoona markaasi jaceelkeeda uu kor ka daawan doono Qaraasi oo gabadha jacayasha haday qiyaantata inaa ka qalayso Soomaaliya oo dulli ma taa horseed banaanba almiin hata aday ku qiyaanta adima dishidniyo sidee qof kale gacantiisa ugu baxaya ninka dhiman waa ka yaa odagan aniga laakiin waxa u dilaysa shaydaamada lagu magacaabo haduu Ilaahay ku idmaayo Sofia ilaa haddana lama shaacinin Biguum inay filinka ka baxayso taasoo ka dhigan markaasi inaysan dhiman doonin haddii la raaciyay inay ka bixi doonto intii berito aniga soo sheegi doono haduu Ilaahay idmaayo marka waxyaabo loo daawan doono intaas ka mid ah waxa kale oo ka mid ah markaasi dareemaha dib u soo xasuusin doona Xaliima in ay markaasi caruurta Cismaan ay ka mid ahayd iyo baala iyada xiriirka ka dhaxeeyo iyo dib u tashkiilinta ay ku sameyn doonto naagta lagu magacaabo Sofia marka muuqaalka intaas ku soo koobaya aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.